الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. waalidiin badan waxay ka fakarayaan dhar nooc ay u iibin lahaayeen carruurtooda si ay uga qayb qaataan dabaaldega ciidda Carafo. hase yeeshee carruurtan waxay ka fakarayaan wixii ay cuni lahaayeen ama ay cabi lahaayeen. carruurtan oo gaaraya 50 wiil waxay isugu jiraan agoon iyo rajo. hooyadood iyo aabood waxay ku waayeen dagaalada iyo qaraxyada ka dhacaya gudaha waddanka. dhalinyaro markoodii hore ku soo koray agoonnimo ayaa carruurtan oo duruufo nololeed haysta isugu geeyay xarunta Iftiin oo ku taala deegaanka Tireedisho ee duleedka Muqdisho. muddo bilooyin ah kadib waxay awoodi laayihiin sii wadida korriimada iyo daryeelka carruurtan agoonta ah. Cabdiraxmaan Ibraahim Cabdinuur waa agoon iyo rajo waxa uu waayay hooyadiis iyo aabihiis halka Farxaan Cabduqaadir Aadan iyo Cabdullaahi Muuse Cabdullaahi ay yihiin agoon. waxay qayb ka yihiin carruurta halkan ku jira ee u baahan in loo gurmado waxayna iga sheekeeyeen xaaladda nololeed ee haysata. magacayga waa Cabdiraxmaan Ibraahim Cabdinuur yare. أبي ودنت ودنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يوم رعير عبد الله موسى عبد الله. عبد الله هاي أبا. هاي ناس أبين ودنت. هاي هاي أنت كده. يا أبوي. هاي أبوي كده. هذا محبرته. يا. هذا محبرته. قرآن. قرآن جامع. فرحان عبدقادر آلي. فرحان أبي هاي أبي ويدي مدوري بس ليرو. محبرته محل. قرآن. استول. قرآن تجارتي. قرآن تجارتي. وقاليه. Khadiijo Yuusuf Maadey ninkeedii waxay sheegtay inay gowraceen al-shabaab. qaar ka mid ah carruurtii ay u dhashay ayaa ka mid ah kuwa lagu xanaaneeyo xarunta Iftiin. waxay dadka Soomaaliyeed ka codsatay in loo gargaaro wiilashan oo isugu jira agoon iyo rajo aan waxba haysan. ilmahaana awoon waaye adoogooda shabaab anaga dili waxad un maanta una haysano abaha yaraatay ma jirto yaa shabaab anaga bireysay il wariigo waa lagu dili kii kalena adoogis tiraba imaadi sariirta fuuli siyad sana sariirta fuuli alxamdulillah nin waxna siiblayn muslimka ilaahay muslimintiis yaa ilaahay wax noo siiso alxamdulillah haddana muslimka ka dhex jirnaa waxad una maanta una haysan abaha yaraatay ma jirto hay'adda sharafta leh waxaa qarabnaaya inaa noo soo caawinto inaa garabka naga qabato inaa garabkan hoogsato yaa ilaahay aan rajaynaa. Sayid Cali Cusmaan Xasan oo ah maamulaha xarunta Iftiin waxa uu sheegay in markii hore ay taageero ka heli jireen qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed laakiin hadda ay istaagtay taageeradii kadib markii uu istaagay barnaamij ka bixi jiray mid ka mid ah warbaahinta magaalada Muqdisho kaasi oo lagu soo bandhigi jiray duruufaha haysta carruurtan kadibna ay ku heli jireen lacag yabooh ah. waxa uu shacabka Soomaaliyeed weydiistay in laga warqabo carruurtan agoonta ah oo aan waxba haysan isagana uusan awoodin inuu sii wado daryeelkooda. halkan waa college-kii agoonta Iftiin. college-kan waxaa la aasaasay 2020 bisha 10aad kowdeeda. waxaana ku bilownay caruur gaadiso ilaa 10 qofood. caruurtii wax anaga budget aan u hayno ma jirin laakiin wixii anaga qarash ahaan oo jaabkiina ku jiro aniga macallin kale oo aan wada shaqeyno wixii budget oo jaabkiina ku jiro ilmihii aan ku wareejinay oo waxbaridoodii cuntadoodii nadaafadoodii daawadoodii aan ku bixinay ma sha Allah kadib mid ka mid ah idaacadaha oo ka shaqeeya Muqdisho ayaan u wacanay si ay ilmahan agoontan ay noo baahiyaan sidii ilmihii loo baahiyay kadib waxaa noo suurtagalay in ilmihii agoontii ay helaan kuraasmo ay helaan sidoo kale sariiro joodariyaal barkimo ma sha Allah intaas oo noo suurtagashay marka waxyaalaha kale oo noo suurtagalay waxaa ka mid ah halkan hadda aan ku jirno masjidka ah oo xarunta agoonta gudihiisa ah saan ma ahayn saan uu ku duwanaa in la dayactiro dad badan ma sha Allah oo muxsiniin ah Soomaali ah ayaa garab noogu siiyay marka ilmihii 10 ay ahaayeen waa wadnay 20 aan ka dhignay ilaa iyo hadda waxay marayaan heer 50 ah ilmaha meesha ku xareysan waa ilmo agoon waxay iskugu jiraan qaar aabahooda geeriyooday iyo qaar hooyo aabo geeriyooday rajo agoonnimo iskugu darsadaan marka ilmaha meesha aan ku hayno sidaas ummadda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa baaqina u jeedinaynaa ilmahan waxay u baahan yihiin kafaalo-qaad u baahan yihiin marka Soomaali qof waliba wuxuu awoodaa hal cunug oo kafaalo qaadi karo
qofkii 2 cunug kafaalo qaadi karo xitaa qofkii awoodi kara halka cunug 6 bilood inuu kafaalo qaado على عنق بشي قنطن دور أو كفلن تاي سكول كيسة دوكسي كيسة جيف كيسة نظافة ديسة وحي سرن عنتديسة دم ولي بالداودي سو كفلن تاي مركا وحكى صومالي أنك عد سنين إني نجا عاويان المها وحي باهين ميل عنتا يكونان ميل هاد واسعة وعنتا يكونان ما هيستان لبق الله عنتا يكون عنان ماش عنتا يكونان ودول أو شمع الله دقي ماش أي فديستان كراس مك فديستان عنتا مك عنان تذكر جرون الماء يكون عياران ما هيستان ماش ده يكون عياران وميل oo boosneerna ay ku taal laakiin waa ka taxadirnaa inkastoo aan ka taxadirno meel yar ay ku ciyaaraan jirto ilmaha waxa laga kala keenay qaar xaafadan tareedisha qaar waxa laga keenay afgooy qaar qaryoole laga keenay qaarna walaweyn iyo qaar waxa laga keenay bariire Cabdiraxmaan Ibraahim Cabdinuur oo musiibooyinka wadanka ka dhacaya kuwa ay hooyadiis iyo aabihiis isaga iyo saaxiibadiis rajo weyn kama qabaan inay ku ciidaan dhar cusub si la mid ah carruurta asaagood laakiin waxay jeclaan lahaayeen inay helaan udxiyada iyo ka warqab guud si ay u helaan barbaarin iyo tarbiyan wanaagsan